السلام عليكم ورحمة الله وبركاته magacayga waa Cabdullaahi Xasan waxaan ahay sharci yaqaan ka tirsan Red Eagle LLC oo ah shirkad ka shaqeysa arrimaha socdaalka dalka Mareykanka fadhigeeduna uu yahay koonfurta gobolka California dalka Mareykanka walaalayaal mawduucan maanta waxa weeyaan ka waran hadaad mataqaanaa qof DV lottery ku guuleystay 2003 fiisihii helay laakiin xaaskiisii ama caruurtiisii aan fiisa la siinin caruurta qaangaarkan ka hadlaya ama si kale hadaan u dhigno waxa weeyaan dad badan waxaa jiraan oo family ah oo DV lottery ku guuleystay fiisaha la siiyey laakiin xaaskii ama caruurtii qaangaarka ahayd aan fiisa la siinin marka muuqaalkan wuxuu ku saabsan yahay sidee mataqaanaa wada loogu heli lahaa oo mataqaanaa familkaas kala tegay iskugu keeni lahaa waqti ugu macquulsan ee ugu yar ee dib ugu midoobi lahaayeen dalka Mareykanka gudihiisa marka walaalayaal sida ognahaba qofka markuu DV lottery kusoo guuleysto oo fiisihiisa soo hela dalka Mareykanka oo saa usoo galaa wuxuu noqdaa isla markii wuxuu noqdaa qof mataqaanaa permanent residency haysta automatically sidoo kale green card holder ala green card oo yani qofkaas helaya taasoo ogolaanayso inuu u dacwoon karo ama dacwo ka gudbin karo soo ku heli lahaa ehelkiisii ama familkiisii like xaaskiisa iyo unmarried caruurtiisa aan la guursanin oo yani 21 jirada meelahaas ah marka caruurta aan la guursan oo 21 jirada ah wax ka badan ama age ka weynka waqtigooda ama processkooda wuxuu qaadan karaa wax ka badan intii horey ahayd maxaa yeelay category ay ku jireen wuxuu ahaa jiray F2A hadda waxaa laga dhigay F2B marka waa xogaa wuxuu qaadanaya intuu hore u qaadanaya in ka badan inuu qaataa laga yaabaa marka qofka permanent resident oo haysto waxaa u furan inuu dacwad gudbiyo dacwadiisu asoo maraya hal way oo jirto u mari karo halkaas way waxa weeyaan inuu buuxiyo ama dacwo inuu ka gudbiyo dacwadaas uu gudbinayo maxaa la jiray form wuxuu buuxinaya horta I-130 formkaas I-130 markuu buuxiyo wuxuu u gudbinayaa USCIS uu gudbinayaa ayaga mataqaanaa process gareynayaan processka wuxuu yahay wuxuu qaadan karaa stepyo qaadan karaya stebyadaas oo ah in la diyaariyo in mataqaanaa la submit gareeyo iyo in mataqaanaa kadib la process gareeyo intaasa marka USCIS waxay ku qaadan kartaa sanad ilaa 2 sano inta u dhaxaysa ay ku qaadan kartaa marka taas waxaa xiga in lasoo approve gareeyo mataqaanaa case-kaaga ama dacwadaada lasoo approve gareeyo lasoo aqbalo kadib waxaa sugaysa waxa la period date waxa weeyaan case-ka inuu current soo noqdo visa bulletin inuu soo gaaro visa bulletin waxa la jiro markuu visa bulletin soo gaaro sidoo kale waa in mataqaanaa case-kaaga DS 260 lasoo buuxiyo soo complete gareeyay in mataqaanaa wixii documents lagaaga baahnayay mataqaanaa meesha lagu upload gareeyay ama la diray oo lagaaga baahnaa already aad gudbisay wax walba case-kaaga taageeri lahaa ama support u noqon lahaa inuu mataqaanaa maxaa la jiray already aad gudbisay taasoo mataqaanaa case-kaaga u sahlayso inuu noqdo qualified markuu noqdo case-kaaga oo interview oo dhiman interview waxa weeyaan visa bulletin mar hadduu case-kaaga soo gaaro interviewgan waxa weeyaan dee waa safaaradda ku xiran tahay safaaradda adii aad mataqaanaa ka sugaysa interviewga ku xiran tahay safaaraddaas waxay ku siinaysaa waqti ama time frame oo mataqaanaa interviewga mataqaanaa maxaa la jiray ku mari lahayd safaaradahan safaarad walbana ayday ku xiran tahay iyo culeyskeeda iyo jaamkeeda safaaradaha way kala culeys badan yihiin marka taa adi dooratay ama taa adi ku qoran tahay ku xiran tahay sometimes waxaa dhici karto adoo interview martay oo mataqaanaa in AP lagu geliyo ama administrative process aa jiro oo lasoo gaabiyo AP marka AP gaas aa jiro oo dib lagu gelin karo oo mataqaanaa idan waqti iska qaadan karto run ahaantii processkana wuxuu qaadan karaa 2 sano bar ilaa 5 sano qaadan karaa 2 sano bar ilaa 5 sano inta u dhaxaysa qaadan karaa taasoo mataqaanaa ay ku xiran tahay safaaradda adii aad mataqaanaa dooratay iyo culeyskeeda ama siday firaaqo u tahay inay ku fuday safaaradda ay ku xiran tahay marka waxaa jirto wado mataqaanaa familkaaga kula midoobi kartid oo mataqaanaa una sahlan mataqaanaa si familkaaga aad mataqaanaa USA dib ugu keeni lahayd mataqaanaa ama dib aad mataqaanaa ula midoobi lahayd marka waxaan jeclaystay inaan sidoo kale idinla wadaago qarshaadka ku baxaya waxa weeyaan formkan I-130ga buuxintiisa yacni ama lacagta lagaa rabo oo fee lagaa qaadayo waxa weeyaan $535 weeyaan lacagtaas waxaa qaadanaysa USCIS mataqaanaa loo shubaya formkaasaa lagu fail gareynaya marka taasi waxaa xigta in mataqaanaa dee qofka kiiska u xil saaran lawyerkii asagana qarshaadkiisa lawyerka qarshaadkiisa waxa weeyaan $2,000 case walba $2,000 weeyaan $2,000 loo kala bixin doono kuna down payment ah yacni marka hore $1,000 bixinaysaa $1,000 markaa bixisid kunka kale waxaad ku bixin doontaa marka Mareykanka ay imaatid ama qofkaaga markuu Mareykanka imaado oo keeskiisii mataqaanaa guuleysto
kadib haddaad awoodid inaad hal mar bixisid waa bixin kartaa, haddaad awoodinna waxaad ka dhigan kartaa mataqaanaa kiskis waa bixin kartaa like $100 bil walba waa bixin kartaa, taasna way kuu furan tahay. Marka waxaan rajaynaynaa inaad noo dooratiin inaan mataqaanaa kiiskiina idinku matalno diyaarintiisa, diristiisa iyo mataqaanaa wax walba gudbintiisa, maxaa la dhihi jiray, iyo inaan ka jawaabno wax walba oo looga baahan yahay ama dacwadda wax walba oo kasoo laabto inaan kaga jawaabno qoladan kiiska gacanta ku haysa USCIS in mataqaanaa si mataqaanaa easy wax walba mataqaanaa aan ku dhameyno hadduu Ilaahay yiraaha. Sidoo kale reer Eagle waxay fahamsan tahay culeyska ama ay keeni karta ama dhibaatada ay ku hayso faamiliyada la kala geeyay ama faamiliyada kala maqan inay tahay mid mataqaanaa dhibaato ah. Marba faamilka waxaa ku fiican in mataqaanaa wada joogaan. Sidoo kale waxaan ku dadaalaynaa waqtiga ugu yar ee ugu habboon ku bixi kara inaan ku bixino si faamilkaas dib ugu midoobi lahaayeen idinkuna mataqaanaa noo xilsaartiin maareynta kiiskiina. Sidoo kale waxaan idinka codsanaynaa haddaad qabtid su'aal mataqaanaa ku saabsan toobyada aan kasoo hadalnay waxaad si toos nala soo xiriiri kartaa mar walba diyaaraan ku nahay inaan ka jawaabno baahidaada. Aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin daawashada videogan. Waxaan idin leeyahay maalin wanaagsan.